hadalkii waxaan ku noqonayaa ururin iyo naashnaash waxa ay haray waa ururin iyo naashnaash qarannimada Soomaaliland waxay soo martay iyo waxa dhacay iyo waxa inoo waa la yiri bal haddaan isku dayo halka maanta ugu mudan in laga wada hadlo nin walba waxba dhiba horta anigu waxa laga hadlayo iyo qarannimadan iyo waanu qaldanay iyo walaynaba abaal guday iyo waxa wala qabay madaxweynayaashii hore ee nimba meel ka soo qaadayay ee nimba meel nimanka soo dhigayay difaaca ugu jiray aniga waxa way ugu soo baxay niman jirin oo aan dawlad jirta haysan ayaa isheegay ana ku xukumay adigu madaxweyne ma tihin kuwii hore ka dhintay yaa saysama waa ko madaxweynaha Soomaaliya lixda bilood oo u dambeysay maalin walba hadaa maalin halku shalay yiri mid ka soo jeedo dhaha idinkaan ay wareero social media haya kii horeeyay waxa uu ahaa ka kaca dawladda Itoobiya dagaal waxaanu hanjaa dalka iyaga way boobtay waa la dagaalamayna waxaan leenahay ka noqo inta aanan gacanta ku qaadan shalayna wuxuu lahaa dawladda Itoobiya waxa uma diidanin walaalaanu nahay badayda waan u ogolahay xeebteeda inay maadaan anaa ogol laakiin aniga hay soo maray halka aan ka yahay aniga hadalka ay qarannimada korban maalintan ka xilka haya ayaa difaaceeda iyo dawladeeda iyo yahay arinta igu culus caawa ee doonayaan yarka waata madaxweynaha Soomaaliya iyo inta ku taageersan kulay malaha dadkooda inta aqli taa ku raacsanee waxa leeyahay horta adduunku sharci u leeyahay waxa la yiri marka la leeyahay dalwad xor ah oo la aqoonsan karo shuruudu leeyahay dhowr ilaa 4 shuruud ta horeysa waxa weeye dawladda markaa joogta ee qaran baa doonaya waa inay dalkoo dhan xukuntaa oo dalkoo dhan amnigiisa iyo arkiisa gacanta ku haysa madaxweyne xasan oo yahay inta la joogtaana way og tahay maanta dawladda xasan waxay xukuntaa oo aan weli gacanta ku wadahayn gobolka Banaadir Kismaayo waa dawlad gaar ah baydhabo waa mid gaar ah oo fargelin karo Jowhar waa mid gaar ah Beledweyne waa mid kale Boosaaso waa mid kale waa intoodii tayar isku haray Soomaaliland 3-4 sano kala maqan yihiin waxay isu sheegtaan waa khad waa laba dawladda la ictiraafay waa inay dhaqaalaha haysaa oo ay dadkeeda waxay ku maamuli karto dhaqaalaha hayso weey dhaqaalaha sanadkan miisaaniyadda xamar miisaaniyadeedu waa 1 bilyan iyo 8 baan maaleeyaa dollar 1 bilyan halka bilyan markaas xagu ka yimid waa mid dawlad jirtay hadday 1 bilyan iyo badh fariis soo saarayso dawladda xamar ilaa xaqiiqada la eegaayo waa sax waa dawlad dhaqaalaha haysata oo dalkeeda resourcekiisa maamusha oo xooda dhaqaalaha 1 bilyan iyo 797 milyan 350,000 $740 miisaaniyadiisu dalku maamula miisaaniyadda 70% waxay ku timaadaa oo uu ku helaa tuugsi iyo qarafu waliba aan muslim laga soo ururin masaajidada aan laga soo ururin kristiyaantiga iyo yuhuudda iyo majuusiga iyo cidda ogaay waadadu laga wacdiyaan ayaa u soo qarafaysa lacagta 70% oo marka Soomaaliland marka loo rabo Soomaaliya 600 iyo ka badan waxa uu soo haraa waa 30% waxay noqonaysaa isagana
saddex boqol iyo waxoogay milyan bay noqonaysa ilama ahaa iminka sida u shaqeeya xasan iyo dowladdiisu dagaalka ay somaliland kula jiraan oo islaayahay kuma filla malaha bilyankuba iyo safaradiisa gaalabaxa ah oo dadka isaga ka soo horjeeda ay idhaahdaan amniga muqdisho ka cararayaa inuu u hoydo waatuu farmaajo ku caajirayso uu safar badan yahay xamar ha seexdo dibal aduu jawar seexa mar haddaan seexan karaynin baan leehay saddex boqol iyo tobanka meel maray somaliland oo tidhi waan xukuma oo qolada ajnabigeena naareesha qalad ah oo lixdankii dhacay ay raacaan oo ah markii aynu ka baxnay qolada ajnabiga tidhaahdo waxaanu idila qabanaynaa waxay yidhaahdeen soomaaliya marka la eego wixii ay wadan ahayd boqolkiiba soddon baa leedahay oo waayo seen u yaaro haddaanu somaliland nahay markii aada su tagteen lixdankii baarlamaanka iyaguna 90 bay ahaayeen idinkuna 30 ba ahayd lama eegin dadka intii dowladihii ka jiray bariga Soomaaliya ee tii afooyo u dambeysay mar baa la qaaday tirakood hayso afar saddex baa haydo markii la arkay tira ahaan dadku siday ugu urursan yihiin waqooyiga meelaha inta badan waa laga beedido waa la xiray oo soo saaro waayo waxa la haystaa sharciyada ah waxaan u simanahay wax ku qaybsanaynaa baarlamaanka dhexdeedii oo sidii ku yimid dad caawir laga hadlay haddaba horta ninka ina sheeganaya waa ninka adduunka oo dhan ku kiciyay carabta maxaan ku radaa Afrika in badan oo Mareykanka soo laga diiday shirka Afrika ee ku musanaabaya haddii la MOU la ogolaado Soomaalida Soomaalida hubka qaadanayo oo ashaab baa la dagaalamaya la wada gelayayo waxa loo dagaalami doonaa muslim iyo gaar oo Ethiopia oo dawlad gaar oo Kristiyaana ayaa waxa la dagaalamaya Soomaalida oo muslim hurdaayo toos leh xasan sheekh waana professor waliba madarka soo joogay miyaanu ogeyn Ethiopia maanta muslimka iyo inta diimaha kala isla isleeyihiin haddana muslimku wax dheereen ma oga in dadka ku nool boqolkiiba 40 in ka badan ay tahay islaam ma oga laba soddon sano u dambeeyay inta masaajid laga dhisay iyo madaaris ma oga shanta inta lagu leeyahay 5 milyan ka badan oo Soomaali inay muslim yihiin horumarka ay gaareen inta Ethiopia la dhaqnaayeen laba soddon sano u dambeeyay aanay isagu daba socdo xasan sheekh ma oga in balaadi iyo jawhar iyadoo samareeb mid walba sanad walba ay ka tagaan dhalinyaradiisa rag iyo hablaba magaalo walba ilaa 500 oo arday oo jaamacad u tagay Ethiopia oo 3 sano iyo 4 sano kusoo noolada oo soo noqda iyaga oo ay isugu mid tahay Addis Ababa iyo Xamar ama kaga ammaan badan oo samareeb iyo jawhar inay kusoo noolaadaan maanta u arkaan dal ay jaar yihiin oo ay wada noolaan karaan ma fahamsana odayga professorkii ee maanta waxaa ku hadlay waxaan ii sheegay walaalahay hawsha inoo taala ee ictiraafka waan raacsanahay in waloo yiri wax walba ay ugu tan ictiraafka waayo mar haddii lagu leeyahay anaa kula ku xukuma dee waxaan eegnaanoo yaalo wada hadal iska daayay salaanta inaan iska qaaday nin kula anaa ku xukuma ku yeeranay حق سلام midna wayna ogaanaa Soomaaliland halkeenu ka duulay horta markaan ictiraaf doonay waxaanu ka duulaynaa nin walba inuu horta aynu abuuro xaalad dhexdeena ah oo gudaheena culo oo safayno waxa qaradaadka ama dhalina ee ninkan hortagaysa ma iskaashano wuu ku qiimeynaya sidoo ku qiimeynaya waa in horta adigu marka hore ka diyaar garowda sida ragga horweeyay wixii dhexdeena ana waa in la dhameeyo oo wanaag laga doodo rag baan siyaasiyadu ka hagto iyagu haagsanaadeen haddii mikrofoonada ka dhaanaha hagaagsanada siyaasiyadu marka la tagana ninkii aad ku heshiisay aynu wax u qabano
hadduu kii ugu xubaan u taageerayo oo aanu la hadlaynin oonu qabanaynin dee mikrofon laga idhaahdaa waxba noqonayso waxayla tahay ereyga la yidhi aynu gudaheena sugayno dee waxa weeye aynu wada hadalno oo hala kala gar qaato oo ninka qaldanow dee gardaraada qaado laakiin hadday tahay siyaasaddu heshiiso qaad kale ha laygu raaco waa qaadka laysku raaci maayo qaadku meel u tegi maayo waa la kala gar qaataa taana waxaa leeyahay saasuu baa dadku dee isku raaci karaan laakiin humaag iyo anaa cadhooday iyo anaa tan doonaya haddii la raaci waayo waan sii cadhoonaya dhoorkaa kugu daaray dadweynahuna waa inuu taa kala eegaadee yaa wixii yaa u horhooraya yaa wuxuu doonaya yaa wax luminaya dee dadweynaha waa runta u kala sheegaa dadka oo anigu haddaan qaldanahay dadweynuda waa inay jeedhaan warda cagahan laakiin waxaa doonaan samaynaya diintaan jiiraya dhaqankaan jiiraya shaksiyaddaan jiiraya haddana waa in waxaan onayaa hala heshiiyo waxaa lata halkaana si run ha loo wada hadlo hala isugu sheego marka mikrofoonka ka dardaaraya markaynu taa samayno qofkaynu ka doonino ictiraafku waana qiimanaya waana qadarinaya markaynu intayna isu geysano ee inagu runtaas u kala sheegno mid kalena waa idin sheegaya malaha ictiraafka meelo badan oo qaladaynu ka fahmay wax weyn oo buura iyo waxaynu cid ka baryayno oo cidi dee kuu siinayso ictiraafku waxa weeye adigu inuu dadku ku qiimeeyo kuu baahdo ilaahayna intaa weyna siiya dalka meel aynu wada ognahay oo maanta adduunka nin waliba u baahan yahay juqraafkana uga hadlayo dad wanaagsan oo hadday baacmushtax tahay iyo hadday suugaan tahay iyo hadday aqoon tahay hal abuurna baa ilaah naga dhigo u fiirsada haddii tacliin la isugu tago adduunka oo dhan ilaa waktiga iyaga ilaa imika jaamacadaha adduunka dalkaa doonta tag cid walba marka imtixaanka iyo lagu jiro qofka soomaaliyeed boqolkiiba 80 dadka kale way kaga firfircooyin creativity waayo waxay ku nool yihiin xaalad adag oo qofku isagoo yar ayuu tabargar noqonaya waxaan leedahay dad resilient adkaysi badan dhibaato kasta oo adkaysta oo ka dabaasha oo yaqaan sida u maareeyo oo mararka qaarkood cimiladooda ka mid tahay dhaqankeenu uu ka mid yahay markaa dhibaatooyinka sida loo maareeyo waxaynu u leedahay dhaqan ahaan rag iyo dumar tusaalana siinaya waa la wada qaxay yurub baanu tagnay dadkeennii tagay boqolkiiba 80 afkooda ma aqoon dhaqanka ra'yi kamay haysan kamay bixin meesha rag iyo dumar weliba dumarku ha si adkaaday markii qurbaana tagay waxay calanka u qaadeen weliba hablaha soomaalidu diinta islaamka direyska xijaaban oo ay ka baqan jireen dowladaha islaamka kala wadan inay ku adkaysteen oo laga fikiraya maraykan magaalo kasta ka tagay waxaad arkaysaa stationka ama markaad gasho mall dumar soomaaliyeed oo siday soomaali ugu labisnaayeen soomaali shaalkooda u sita oo afkooda ku hadlaaya oo aan warwareyn oon hadday doonaan kamid ingiriisi oo aqoon inamadeedii dadkii ragga ahaa ee tegey dad badan baa ka soo baxay hadday aqoon tahay hadday talo tahay hadday hal abuur dhaqaalo tahay inagoo awooddaale waa inaynu ka faa'idaysano waxaynu nahay deetana nin kastoo nala hadlaaya inagoo isku kalsoon uu ku qadarinayo aanu tahay taasaynu ku helna ictiraaf tu kalaadi ku daraya ictiraafka shardi kuma xidhna ciddaa isqabsataan ee waxay ka dhexeeyeen inay iyadu ku hayso ictiraafka marka la leeyahay dowlad idinkaas iyo soomaalida wadahadla waa nin ka cagajiidaya ama aan kugu qanacsanay waxaad wado waa afgobaadsi u fiirso dhowr iyo toban dowladaba maanta ictiraaf qaatay iyadu waa is haystaan kuwii ka soo horjeeday waxaa ka mid ah falastiin oo maanta waxaa lagu dagaal ku dhacayo 100 dowladood in ka badan baa ictiraafsan waxaa ka mid ah Kosovo Serbia haystaan dhowr iyo 9 baa ictiraafsan oo Mareykanku ku jiro qolo kale hadiidee lama oran Serbia oo jimcida qoladaas ka dhaxaysa ka qaylinaysa ayaa la sixiriyay waxa kamida dawladaha ugu badan ee ugu badan haysta qolada la yiraahdo Saxaraha galbeed 46 baa 70kii ictiraafay iyadoo Morocco ay leedahay amaar
dawladda uma joojiyaan cidda ay ku qaracaan kolkaa ra'yiga odhanaya waxaan u xidhnaanaynaa ku noqda wada heshiya waa adigoo yidhaahdaa ninkani gacantan wuu iga jabiyey ama nabarkanu igu dhuftay oo waan igaa socon leh waxaan doonayaa in xaqaygii la iga doono oo aad wada heshiiso uu ku yidhaahdo waa arrin ka dhaxaysee org wuu ogyahay inaad jaban tahay oo haddaad sheegtaan dee ku garaacaya ka ciibaysi marka caqli ma aha waxaa laynagu maaweyninayaa ee dawladaha la yidhaahdo dadka u xoog weyn nagula hadlaya markaad runta u sheegtana weligood kuu sheegi maayeena waxaa dhahaa waa diblomaasiyadoo meel dhexay ku wareegeystaa waxaan taa kaga gamaya oo wixiina soo maray halgan ahaa iyo dhibaato ahaa aan kaga samraya oo anigu caawa aan leedahay maanta waa meel wacan baynu maraynaayo saadaashaan arko ka wanaagsan biri ka wanaagsan baa soo socotay dhowaan waa dhalinyarada aan ka hore wogeyn midowgii oo aan dawladdii hore ee midaysan ka shaqaynin ee tala qaaday rag iyo dumarba wixii ka dambeeyey oo 90kii oo dee maanta 40 jiro aabiyo hooyo ah oo waalida oo aan Soomaaliland ma wax kala aqoon dhalinyaradaas ma haydo dadka da'daasi way ka dagaal badan yihiin xagga xorriyadda iyo dalka inta ka waaweyn caasimad kastoo adduunka qoraal bay dhigeen dal kasta oo ay joogaan waxay u duwan yihiin in aqoonsiga Soomaaliland ay ku qasbaan adkaysiga u maraan iyagu dhaqaalahooda oo dhan ay horaan waana la wada socotaan waxa adduunka ka dagaal galaa waa dadka istiray ee aan aqoon dawladdii hore iyo xabaab midow leeyahay ee maxaa annaga loo ictiraaf waay heerkan lagu qasbay kuwaas oo shaqeynaya markaan arkana waxa aan aad iyo aad u kalsoonahay insha Allah dhawaan doonaa iyagoo ictiraaf iyo dhaqaalaha horumaray intaba ay sameeyeen waayo waxa la yiraahdaa ninka ay xoolo siiyay dadkiisu siiya marka inuu gobayo nooyo horumar helay dadkeena da'yarta ah ayaa arrintan markaan aad iyo aad u kalsoonahay intaas ka garaya xuska caawa waayo intii halkii ka dhameeyay anigu inta maan taagan baan sheegaya ereyga la yiraahdo emayugi goor baa la dhameynaya alxamdulillah dadkeenu say warta u taageersan yihiin iyo sida mustaqbalkooda u doonayaan inay mar uu ictiraafka dawladda horeysa wax kasta aan kala aqoonsanay ay timaado malaha saacadiiba intaas telefoon baa lagu weydiiyay arrintaas waxay maraysaa oo ay dimaaraytaan in labada dhinacba Itoobiya Soomaaliland ba ay ka go'an tahay in agreement-ka la saxo oo iyaga loo bedelo xeer oo horumar haddaan wuxuu qabanayaa maraya innaga waxba dhulkeenima yaalla aroorta hadday qolada kala diyaar tahay inaguna diyaar bayno waa dal ballaaran dhibaatooyin badan buu leeyahay waxyaalo badan go-aanyada ku abshiray inaan kaasi ka noqnoqosho iyo saxsaxad ahayn xasan sheekhna tahadalkiisii waa ka arkaysay laakiin waqtiga la qabanayo waxaan isula u waafaqintay ahayd waqtigaan soo dhawaado taasina insha Allah degdeg oo loo doonto qodobka ugu dambeeya waxa weeye sanadkan waa sanad doorasho waxay ila tahay haddii aynaan doorashada marka horena qofka la dooranayo loo eegin talo muxuu inoo qaban karaa ee loo eego imika waxyaalaha ku cusub hadda Soomaaliya wada qaaday inoo qura maahe dawladdii waxaa la doonaya in lagu dhiso sidii qaaraanka oo kale oo la yidhaahdo baarlamaanka la doorto baarlamaanka nin dawladda yaqaana oo sharciga yaqaana oo aragti dheer leh oo dawlad dhisi kara ilaa waa guddi dawladda in la soo doorto baahay laakiin waxa maxaa dhacaa marka la geeyo waxa dadka laga qayb galiyo dadku waxay yaqaanaan laga qayb galiyo haddii qof imika halkaa uu xanuunsanayo oo la yidhaahdo dee waa dhakhtar meena dee aynu dee u tashana ninka oo reer loo dhaho dhamaado salo waxa la sii doono dee tan la yidhaha qalliin buu baahan yahay dee haddii la yidhaha reer hebel shalay bay qalina maanta ninka hala qalo dee maxaa lagu maray ma caafimaad iyo makacaya wuxuu galay markaa xilkii la doonay in la yidhaahdo maanta reer hebel baa u leh kaal shalay hore reer qurac baa qaatay بريتنا ريح قرع عباقة ما ترى قادر هي دتنا ريح بالواجه واصح تذكر صوت من الدولة على سوي هذا وارد حقوق له ذريه لكن الريح بالحق قف وحيقان إلى شغل ولا واقعي
dhibaatada la haystaa waxa weeye waa inoogi sidaasi dowladdu socon mayso qof waliba uu yaqaano qof haysa loo doono tu kalaba midkana soo baxday ilaa halka u hooseysa dowladda hoose kuwa loo dooranaya waa la isqeybin waxa leeyahay haddaynu nahay reer majulaayo sanadkani waa kaayagii ilaa madaxweynaha dee miyaan ka wanaagsanayn haba lagu heshiiyo in cid waliba dee xil ka rabta inay meel u xidhaato maaha intina ahaana cid wax ku qaata maaha inay dhaqan ahaan wax ku qaata maaha oo dadka tala ka yarata laakiin waxaa ka horeeya dee yaa hawshaa qaban kara oo garanaya taana waxaa leeyahay doorashada bal horta marka dadka soo xulayo iyo cidda la dooranaya haynaga hubsato hadhowta inaynaan fardhex ka celin oo marba la odhan waa kala okey kale marka intaa la ilaa waxaan leeyahay dowladda dadaal adag bay u gashay inay doorashada socoto culayskeeday leedahay ku dhaqaalay leedahay ku nabadgeliyay leedahay ku dulqaad bay leedahay intaaba anagu dhexdana xidhanahay waayo xukuumad ahaan waxaanu go-aaminay oo dadkii ciddii aanu la tashanay oo dan moodaynayna aanu kala tashanay oo kuwa taageero isku raacsan yahay in aynu doorashada xag alle mooye waktigeeda ku qabano doorashadana waxaynu qaban karaynaa marka dadka u tartamaya ee xisbiya doorashada xisbi ama ururka u tartamaya markay daacad ka yihiin inay doorashada qabtaan laakiin inaanay noqonin hashii geela cuntee cabaaday doorasho hala qabto haddana doorasho lugtaan haynaya waxan waa daahinaya hadee dhici mayso tusaale si aynu u kala galno oo musuq looga cararo oo cid bay khiyaamaysay iyo dowladda sanduuq iga boobtay iyo halkale wax ka dhacay aan uga baxsano waxaynu kharash 5 milyan oo loo gelinay in isha bu'deeda la sawiro qofka soo codeynaya xisbiyada macalka qaar baa ka qayliyay oo inaad haddaan nidhi xalaal iftiinaan qalano oo waxaan ku maranaanu ka baxo oo durba ka qaylsoo dadahay yeeli mayna oo kaaga daranta aayar anigana ii sheegi maysid ma tashanaan maysa adduunka waraaqa u qorisoo dadahay waa lagu daahinayaa in lagu baabana doonaya waar isha bu'deeda qofka hala saro waa loo siman yahay ninka maanta dabada qayb ururijinaya haddana mucaarad baa doorasho qaba ilahoo maxaa doonaysaa bariishe kaa meel u kala baxaya waa la qabanayaa si sharciya loo qabanayaa isha bu'deeda in la sawiraa sharciga doorashooyinkay ku qorantay xukuumaddaa la faray inay fuliso si dadku aanay isu arag sharci doorashada haddaad hortaagda adaa cirka roog ku og anigu sharciga waa fulinayn haddaan xukuumadda dhaqaalaha wax kastaa waxaa waa fulinayn taana waa intaa nabadgelyaha lagu codeeyo sharciyada doorashada loo hoggaansamo dee cayda iyo buuqana ninkii caydee ninka afkiisa ku taagan ninka waayeelahay fogaano ka caytama ama suldaan ahaw ama caaqil ahaw ama siyaasi ahaw ninkii fogaano ka caytamo ee cid ka maaga ee hadal qadafa yidhaahdo ifi akhraba aday ku dultaaba markaa laakiin dee walaalayaal halaysturana meeshu ib waa la yidhahdaa aynu soo turno waxaa la yidhi beri waa buuq waa jiray berihii intii jabhadii iyo markii la warsanaayo xabad baa dhacdee war xabad baa dhacaysa xagga masaajidka noori buuri markaasuu sheekhu masaajidka ka dhacaysa xagga loo carara waar dhaqan xumadii iyo af xumadii iyo intii lalahaa waar dadka u kaadiya hadday kuwii dhaqanka loo ijaartay aanay afkoodii waxba ku dhaafaynin sidee la yeelaya xagga lagu carara dhaqanka yaa saxaya madax dhaqameedkii haddii looga taaglayahay wixii ciyaal suuq ku hadlayay marka maxaa la samaynaya kiyaraana muxuu sameynaya marka inanka yaraa soo waxaa baran maayo soo kaegan maayo markuu madax dhaqameedka ku hadlayo waxaan afka una soo marin karo habaryari wax ka sheegayo maxay noqonaysaa marka waxaan leeyahay de haddii magaca madax dhaqameedka dadka lagu caayayo waa cibaaro soo baxday waa inta caytanta inta wanaagsan taagumalihi